اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Uko Media waxaad ugu barateen barnaamijyo xiisaysan. maantana halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa qaybtii labaad ee fadwooyinkii ugu yaabka badnaa ee laga sheegay bisha barakaysan ee Ramadaan. daawasho iyo dhegeysi wacan insha Allah. qaybta toddobaad ee barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa reebida laga reebay dumarka inay banaanka u soo baxaan iyagoo sooman, sida ay soo saartay fadwo kooxda Daacish ay kaga mamnuucday inay banaanka u soo baxaan dumarka sooman. fadwadaasi oo ay soo saareen sanadkii 2015 taasoo ay kaga mamnuuceen meelaha ay ka talin jireen Suuriya iyo Ciraaq, taasoo ay ku sheegeen inay mamnuuc ka tahay dumarka sooman inay banaanka u soo baxaan xitaa haddii ay soo xirtaan xijaabo waaweyn, shareero iyo galoofyada. waxay yiraahdeen waa mamnuuc inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, taasoo ay ku sheegeen inay aragtida ragga iyo dumarka is arka ay soonka jabinayo say ayagu aaminsan yihiin. sidaas darteed gabadha haddii ay lagama maarmaan noqoto inay banaanka u soo baxdo oo ay soo bixi karto kaliya kadib salaada maqrib iyagoo maxram la socdo. qodobka 9aad ee fadwooyinka ugu yaabka badnaa bisha barakaysan ee Ramadaan lagu sheegay waxay tahay soonku waa dhaqan fircooni ah oo aan laga faa'iideysan wax caafimaad ah. adad al-mukhrijiyya waxay ku tilmaantay soonka in aan diinta sal iyo raad ku lahayn, sidaa darteed islaamku wuxuu u yimid inuu qiro soonka. sidoo kale Khalid al-Muntasir ayaana la qabo fikirkaasi. sidoo kale Muntasir oo u dhashay dalka Sacuudi ayuu sheegay in soonka wax caafimaad ah laga faa'iideynin, taasi oo ku sheegay barnaamijka Ramadaan kaga hadlayo reebitaanka la iska reebo 18 saac biyo la cabin. kaasi waa wax iska caadi ah ayuu yiri. fadwada 9aadna waxay tahay cabista sigaarka oo bannaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. kama dambeystii waa fadwo saameyn leh uu soo saaray Jamaal Bana, kaasi oo ku sheegay cabista sigaarka maalintii inuusan soonka jabinaynin, taasoo uu ku tilmaamay sigaarka inuu la mid yahay sida baquurka la shito oo kale. fadwada ugu dambeysa waa fadwo aan waxba ka jirin. fadwo kale uu Zamzam soo saaray galmada la sameeyo bisha barakaysan ay tahay mid soonka jabin. naagta wax dambiya kuma lahan haddii ninkeeda uu ku qasbo maalin Ramadaan, kaasi oo uu soo daliilsaday xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam. qalinka waxaa laga qorqaaday 3 ninka hurda iyo kan la qasbo. sidaa darteed ayuu ku sheegay in la shumin karo naagaha bisha barakaysan ee Ramadaan. daawadayaal anagu uma faafin warbixintan inaan shakhsiyaad ku dhibaateeyo ama koox, laakiin waxaan u faafinay inaan ummadda u gaarsiino wax wanaagsan, taasoo loo soo daliilsado Qur'aanka ama sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam. waad ku mahadsantihiin daawashadiina ila socodkiina barnaamijkan. intaan barnaamijka xigla la kulmi doono sidaa nabad. kaliyo